Soomaali waan salaamaya meel kastoo dunida joogtaanba nin baan laba kalmadood ku oranaya ninkaas wuxuu yiri shirka Djibouti ka dhacaya ninka ka qayb gala waan gowracayna isagoo u jeeda Ciise iyo Samaroon waayo Djibouti waxa weeyaan buuri cadow bay inaga inoota marka qof kastoo taga iyo qofka dawladda xidheelada iyo shirka cidda ka qayb gashaba waan gowracayna saasuu ninkaas horta aniga marxaatiga ayuu ii furay muddo badan baan u sheegay tolkeen waa reer kari cadow bay inaga noo arkaan idinkuna aad xabaayibka moodaysaan laabta ku sidataan inaga waxay noo arkaan waa cadow laakiin igama ay aqbalay maanta soo ka ninkaas cadeynay boqol qof oo ka horeysana way cadeeyeen waa kow ninkani waliba wuxuu ahaa afayeenkii xusbigii haligmay ee bilaa sharciga wuxuu hadduu sharci darro iyo xaq darro ku socdo waa la halaagaa ma dhinto waa la halaagaa xusbigii haligmay ee daadku qaaday ee kulmiye la odhan jiray ayuu afayeen u ahaa marka waa nin daad qaaday xumbo cuski ujeedada imika uu leeyahayna waxa weeye in xusbiga imanaya maamulka imanaya ciro in la fashiliyo way ujeedada wax san ugu hadlaya oo dadka iyo maamulku isku diraya oo dabsi kala dhaxdhigaya taas dabkii si kala dhigaya ta kale isaga Soomaaliland jacayl kuma jire shalay waa kii ka maqnaa waa markii halkan uu yimid ayuu noqday Soomaaliland xabaayiba marka si xabiib aad u noqoto waa inaad reeraha kala cayda oo tirawadi gowracayna gowracaasna boog buu qodaya wuxuu qodayaa boog bisil oo qoyan ayuu qodayaayo rag Samaroona ay isaaqu gowraceen maantana waa ka sheegay waan gowracaynaa buu leeyahay marka maamulka imanaya lagu fashilinaya waa inuu fashiliyo raba waa maamulka imanaya waa kow waxaa jirta islaan suuqa ku jirta oo suuqa afar ciyaal ku dhashay sharci darro marka aadna way odab daray maalin dambe suuqa ay tagto gabadh marwo ah ayay safdhaafeen waxay ku tiri markay caaydi u dhamaysay tiri waliba waxa tahay suuqaad ku jirta afar ciyaalana sharci darro ayaad ku dhashay gabadhii baa yaabtay oo dhinacyada intay eegtay waxay tiri talow aniguna maxaan ku idhaahdaa idan way ogtahay waxaan ku leedahay iyada ah aniguna maxaan ku idhaahdaa bay tiri marka de maxay ku oran waa safiihada iskaga tag weeyaan marka maxaan kugu jawaabnaa kan idan kii shalay xagga jooga weeyaan ee kamaliyoonku waa xawayaan kula meeshuu joogo u eg oo jirjiroole ayaa la yidhaahdaa waa jirjiroole kula meeshuu joogo ayuu u egya marka dadkiisa si iskaga dhaadhiciyo waanu dhaha waxbaan dilaynaa dhiig baan faraha la galaynaa indhahaan dad ka soo tuuraynaa waxbaan cunaynaa waa inuu yidhaahdo dadkiisu iska gadaya ta kale xusbigii ka guulaystay iyaga ayuu rabaa dadka inuu ku diro waxa lamid ah dagaalka ka socda ceerigaabo imika waxaan meeshan leeyahay ceerigaabo waa dagaal siyaasi ah waxana laga hortagayaa maamulkii ciro ayaa la rabaa in la dhabarjabiyo oo la fashiliyo ayaa la rabaa sababtoo ah meesha dagaalka markuu ka bilowday ninkii ina kaahid iyo cali bareexaan iyo tiimkii waa kuwa daansiyo way ciyaarayeen waad aragteen halkan dagaal baa kaga soo ciro waxa loo soo dhigaya miina loo soo dhigayaa ninkii ciro ahaa miinadii baa qarqaraxday marka waa kuwa ciyaaraya way daansayaan yani shirqoolkii u sameeyay ciro waxa lamida tii u sameeyay Musabbix ee markuu madfaca la dhaco dadkii Rabadaan talaas caaro markuu madaaficda maalintu la dhacay dad badan dhintaan meel la yiraahdo xerada beerta la yiraahdo xorriyada ayaa lagu ciyaari jiray dumarka iyo ragga dawladda ayaa lacagta bixin jirtay halkaas isna uu la daansi jiray markuu dadka laayo oo la ciyaari jiray shaqadii baa laga wadaa waxa miina loo dhigayaa meel walba maamulka iban doona ciro hadalka uu ninkani ku hadlayay Djibouti iyo ciro kala fogaadaan ayaa la leeyahay waxaan ognahay ciro markuu meesha qabsado in saacadkiisa ugu horeeyo inay Djibouti tahay laakiin ninkan su'aashan weydiin lahaa waxay tahay war haday Djibouti cudina tahay cadow oo cadow u haysataan Djibouti maxay 250,000 oo idinkii Djibouti ugu noolay oo sharaf iyo karaamad ugu noolay idan meesha cadowga aad aragto dadkaaga waa laga soo gurtaa waa laga soo kaxaystaa dadkaaga meesha cadow aragto
sidee bay dadkaagu markaa u joogaan haddaad cadow aragtaan maad ka soo dareersatay inaad ka soo dareerisahayd marka carabtu waxay tidhaahdaa toobatalqaxba waa yoomin wixii shalay aad waday unbaad rabtaa iminka inaad ku noqoto naagtu suuqa ku jirtaay 2 cisho unbay ka tidhaahdaa waan ka tanaasulay wixii oo salaada tukataa dabada forforisa maalin saddexaadna marjuucsaday meheradaydii halkeedii bay ka bilowdaa وتوتلقى يومين مركا ماشي وحبا كوما يالان عرا إيو مامولكيسا إيا دادك الصومالي لان ودا دقان لابد صدح رير إساق إيا سمرون إيا عيسى ودا دقان إيد كلمة جرتو ريرك القبوية إيقو نجرا وحبا كوما يالان هكي كنقو ماشي أدكت من دا كنقو حبا أدون أفلقادين أدون دادك عاين أدون دولة جنبوتي معناه إنك الصومال لان إمك أهان مامول كيميك الجري وحكا دون إياه وإنو جنبوتي عايا وإنو مدحويني هيدا عايا وأفلقادية وإنو قفك جنبوتي جو تغين عايا وكادق عمل أن لا تيكرين أو مصيبة طالة كوارت أوف مليون إياك إني جنبوتي بيكون نوريهين وشرف إيا كرامت بيكون نوريهين يقولون أخوة عايا إلا نيكي تغا qoortaa ka goynaya waan gowracayna marka waxaan meeshan dabkan waxa la dhigayaa miina la dhigayaa oo la ballaadhanayaa oo meel walba lagu xidhayaa in markuu yimaado miinadaas ku wada qaraxdo waa sida wadeerka inay kaahin ciyaarta ciyaar weligay ma aragtaa oo meesha 7 sano ay joogeen kaahin ciyaar ma aragtani cali marreexaan dumarka dhexda qabsaday la wareegayeen waa dagaalka ka socda ceeri gaabo ee iyagu kiriye iyaga sameeyay lascaano iyo hargeysa way si kala fogeynayaan si uu fashilmo ciro inuu fashilmaa la rabaa ma rajaynayno inuu ciro fashilmo annagu ma rajaynayno laakiin idinka farxad bay idinta waayo Soomaalidu waxay tidhaahdaa guri gubtay kama naxo idinku waad gubateen waad olosheen waa leedin cadaabay halaag baa idinku dhacay halaag daad baa idin qaaday daadka waa la isdaad raaciyaa daadka lagama hortago weligaa daadka lagama hortago waa la israaciyaa haddii ila idin halaago ilaahay idin halaago daad idin qaaday waad raaci lahayd waa la raacaa laakiin aflagaadada inaad joojisaan baa fiican aflagaadadu waxba idin tari mayso iyo dadka aad isku diraysaan cirana waxaan u rajaynaynaa inuu guulaysto idinku guuldaraad u rajaynaysaan laakiin annagu ciro waxaan u rajaynaynaa inuu guulaysto Soomaalina inay guulaysato ayaan rajaynaynaa haddii alla yidhaahdo aad baan idin salaamayaa Soomaaliya